بسم الله الرحمن الرحيم dhamaan ardayda dadweynaha Soomaaliyeed oo jecel barashada casharada cookbooks casharadii inay taxanaha ayaan soo socdaa marka laysankii 12aad baan sii maraynaa step by step anagu casharada u qaadan doono marka maanta casharkeena waxaan ku fiirin doonaa sidaan editing ugu sameyn karno itemski aan soo diyaarinay iyo sida loo qurxiyo itemska iyo sida search lagu sameeyo loo raadiyo itemka haduu ka maqan yahay marka waxaan isticmaali doonaa anagoo isticmaali doona inventory bar sida u soo dhisnay itemyadii itemyada waxay kala baxaan inventory bar service non inventory bar marka inventory bar itemyadii ahaa ayaan raadinaynaa waana soo guda galeynaa waana muhiim jiddan marka sida editing ugu sameyn karno oo ama aan u delete gareyn karno itemkii aan la rabin oo laga saaray qadka marka sida darteed casharadeenii taxanaha step by step baan u baranaynaa anagoo ka baranayna Somali Star Online Training marka casharadeenii taxanaha ayaa halka inoo sii socon doona waana muhiim jiddan taas marka casharkayga maanta aan soo guda galo waxaan ku guda jiraa company-gaygii already marka waxaan soo gadayaa list item baan tagayaa item baan ka dooran doonaa anoo menu bar ka isticmaalaya halkaas aan ku soconayaa waxaan dooranayaa lists markaan doorto item list baan dooranaya ila soco marka step by step baa u baran doontaa itemyadeeni waa kuwana waa badan yihiin marka itemyadeeni waa kuwa itemyadeeni waa kuwa marka itemyadeeni step by step waxaan u raadin doonaa inaan ku sameeyno inaan search ku sameeyno marka item raadinayno search baan tageynaa halkaas aan ku soo qoraynaa itemka rabno hadda waxaan u baahanahay Nokia baan u baahanahay Nokia halkaas baan ku soo qorayaa una ii imaanaya Nokia-gi oo search hadii aan rabo halkaas aan ka raadinaynaa marka Nokia halkaan nagu ma jiro oo itemkeeni Nokia nagu ma jiro laakiin hadaan raadinaynaa si fiican baan raadinaynaa oo farta yar buu ku qoran yahay uu nagu jiro laakiin farta capital letter ma aha Nokia search akaal soo helay marka raadinta waxay qayb ka tahay sida aan u baari karno itemyadeeni aan ku soo heli karno marka itemyada badan yihiin boqolaal ay gaarayaan waana very important taas marka sidee editing ugu sameyn karnaa itemyadeeni casharkaas waa muhiim itemyadan dhisitaankooda way fududiin laakiin editing ugu sameeyo ayaa ka sii muhiimsan marka halkan waxaa nagu yaala edit itemka hadda aan dul saaranahay baan edit ku sameyn karnaa waxaan ku sameyn karnaa double kate item baan ku sameyn karnaa delete baan dooran karnaa waxaan dooran karnaa editing multiple item baan dooran karnaa iyo edit markup baan dooran karnaa edit waxaan dooran karnaa make item inactive baan dooran karnaa way badan yihiin marka flat view customizing column baan sii aadi karnaa use marka find transactionada dhacbaan fiirin karnaa printer list waan printer gareyn karnaa marka anaga inoo taala edit item hadii aan doorto maxaa dhacayo itemkii aan soo qorno saa u qornaa ayaa wax ka bedeleynaa marka itemkii saa ayuu qornaa wax ka bedelis ayaa laga rabaa marka itemka wax ka bedeleyno waxa inoo banaan item markup waa sii dooran karnaa inaan sameeyno oo qiimihii price-kii aan wax ka sii bedelno boqolkiiba inta la saarayo boqolkiiba inta cashuur noqonayso waxa soo baan bedeli karnaa marka maxaa bedelitaankeena waa inventory party car way qiimaha soo fadhiya marka waxaan ku soo noqonayaa sida aan u sameyn karno itemyada aan edit ugu sameyn karno right click baan leeyahay waxaan dooranayaa double kate item baan doortay taas ay soo baxday on handy-gi waa laga qarinayaa hadda baan soo qorayaa on handy-giisa marka aan sameynayno itemka inaan bedelno saasaan lagu soo diyaarinaya on handy-ga marka waxaan ka dhigayaa awal on handy man haysan 25 halkan waa 200 iyo 250 saas ayuu yahay kan waxbaan ka bedeli karaa kaarkii waan bedeli karaa naftigiisa marka itemka saas aan bedeleynaa marba meel baan ka bedeleynaa mar waxaan ka bedeleynaa inaan itemkii aan ka bedelno mar waxaan ka bedelnaynaa itemkii inaan qaybtii ka bedelno aan ka bedelno on handy-ga mar waxaan ka bedeleynaa qaybtii kale marka step baan u bedeleynaa marka casharadeena oo taxanaha ah notes baan sii raacin karnaa halkan oo waan bedelnay baan ku sii qori karaa okay ku sii dhigi karaa
marka bedelida waxay muhiim u tahay inaan ku barano cashirkeenan sidaan u bedeli lahayn itemyadeeni aan wax uga bedeli lahayn haddii hadda aan bedel iraado right click aan iraado edit aan add baan iraado edit multiple item maxaa soo baxay taasna waa baranaynaa marka step ku baro waxaa noo soo baxay itemkii oo naloo geeyey oo currently editing lagu sameynayo gabigiisaba itemyadii kala duwanaa oo costigoodii saleskoodii iyo cost accountigoodii kulla beddelay ayaa noo yimid marka save change buu ku leeyahay bedel oo save garay marka waa iska ilaalinaynaa cashiradeeni customizing columnyada aan inta noo yaalana magacyada waa kasii bedeli karnaa marka annagoo cashiradeeni imtixaanaha step by step u qaadanayno ayaa waxaan ku guda jirnaa quick box inaan ku barano cashiradii imtixaanaha ahaa oo aan ku baranayni marka inventory part baan maanta joognaa inaan wax ka bedeli karno waxaan kusoo dari karno oo markaan wax kusoo darayno waxaan dooranaynaa new waan ka imaanaynaa halkaasaan kasoo dooranaynaa oo item cusub baan soo qoraynaa service baan soo qori karnaa mid kale aan soo qori karnaa doonaan soo qori karnaa ka noqonayaa marka doorashadu waa muhiim marka flight view baan samayn karnaa inaan itemyadayna ku sameyno war itemyadan casharkan waa aad buu ballaaran yahay excel baan kusoo xambaari karnaa oo waan soo baranay sida lagu soo xambaaro import excel waxaan dhihi karnaa import all items excel baan soo gelin karnaa oo halkan excel baan ku habeyn karnaa attach baan soo gelin karnaa anagoo step by step casharadeen u baranayno ayaa waxaan ku jirnaa sida inventory-ga u habeyn lahayn creating worksheet baan ku sameynaynaa oo kusoo abuuraynaa oo nalagu habeynaya haddii banaanka yaalaan banaanka kaga soo sameynaynaa haddii gudahan aan ka hagaajinayno gudaha ayaan kaga xiraynaa excel marka step by step ku baro waa kana iyadoo excelna lagu xiray cashirkii aan hadda ku jirnay waa kana saasaan looga dhigayaa qaabkaas isku bedelayaa marka QuickBooks wuxuu xiriir la leeyahay Microsoft Excel sida loogu qaado hadda baranaysaan saa ayaa u sameyn doontaan waana mahadsantiin cashiradan step by step baan u baran doonaa annagoo cashiradan iska ilaalin doona inaan ku wareerno lama rabo inaan cashiradan isbarbaryac aan ku sameynana lama rabo marka tartiib haddaan u baranayno waxaana laga doonayaa inaan cashirkeeni si step by step tartiib aan ugu barano annagoo cashiradii aan Excel ka soo dhigayno Excelkiina aan sii quruxsan doono saas ka sii dhigan doono markaas aan ka dhigata itemkii Excel ku qaado waa sii save garaysan kartaa oo halkan waa sii save as baa dhigi kartaa oo waxaa dhigan kartaa banaanka company-ga ayaa ka dhigan kartaa oo adoo tartiib u sameynayo buugto banaanka erig baan leeyahay waxaan ku save garaystay desktop-kayga u yaala hadda marka cashiradii oo aan ku baranayn QuickBooks ayaan ku goy jiraa itemyadii aan ku goy jiraa itemkayga baan dib ugu soo noqonaya waa iska qaaday Excel-ka marka itemkeeni sample noo ahaa oo itemkeeni waxaan edit kaga sameyn karnaa meel walba oo itemyada halkan waan soo dhaweysan karnaa halkan waxaan sameyn karnaa ila soco step ila soco halkan waxaan sameyn karnaa qasnadii halkan itemkaan yareyn karnaa kan waan soo dhaweysan karnaa kan waan iska turjin karnaa marka cashiradii waxaan ku baranaynaa Excel-ki aan ku baranaynay itemka sidaan u kala habeyn lahayn QuickBooks anagoo ku kala jirna reports baa halkan noo yaala oo si fudud aan ku heleyno price-ka kaliya report baan ka sameyn karnaa meel walbaan ka sameyn karnaa reportkeeni aad iyo aad buu u ballaaran yahay reportka uu leeyahay aan idhaahdo barnaamijkan QuickBooks Pro marka haddii attach banaanka Outlook aan ku qaadayno aan ku dirayno email ahaan halkaasaan ka dooranayna marka cashiradeen barashada weli waxaan ku goy jiraa QuickBooks anagoo ku baranayna cashiro kala duwan marka cashirkeenna maanta oo itemkaan kaga hadlayay intaa haynoo joogo dhammaan marka ardayda ay dadweynaha jecel cashirada barashada QuickBooks wuxuu kusoo dhawaanayaan Somali Star Online Training step by step ku baro QuickBooks adigoo gurigaaga ku qaadan doona ama goobtaada ganacsiga sidaa darteed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaan allah